maalintii nebiga adeerkii la dilay calayhi salaatu wasalaam ee ansaar meydkooga ay urursanayeen ee nebiga la yidhi waa kan adeerkaa meydkiisii wuxuu arkay halkaasaa laga dilaaciyey xamse calooshiisii intoo la kala dilaaciyey ayaa midhiqiryaha uuskiina bannaanka lagu shaydhiyey keryihiisii ee beerkiisina cidna lagu daadiyey markaasuu nebigu argagaxay calayhi salaatu wasalaam markaa buu saxaabada ku yidhi walaashii safiyaa soo socotoo ka argagaxaysee horay isku celiyo mara ku duduba buu rasuulku yidhi go'isii intuu u tuuray dadna lilmaa ka daadatay rasuulkeenna markaasuu yidhi yaa cammi adeerkii ma maqlaya wuu shahiiday khalaas wuxuu yidhi 70 quraysha anna waa inaan kugu aargudaa buu rasuulku yidhi markiiba qur-aankaa soo degay waxyiga maxay soo degtay aayadda sheeg fain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin baa nebiga lagu yidhi haddaad aargoosanaysid ood adeerka u aargudaysid baa ilaahay ku yidhi dee midun baa lagaa dilay adiguna midun disho baa ilaahay ku yidhi haddaad sabirtidna hee saabiriinta sabirkaaba u khayr badan baa ilaahay ka yidhi يعني حماسته إنك قادم بلا ليه ليتخذ منكم شهداء أنك عضمعني بها إلى هيد قاركين إن دين تأشهيدان أدرك وحكم النقصان وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بها إلى هيك ويريه أديك وحبك كامل ناقص منه وحبك وزيادة لقى مرة بينك طلني ماذا يقبيالات وأيكو قاعدة حتى هذا أرجودي سنة دمدون بلغات دي لمدون تشوف هذا صبرتان بها إلى هيد صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويل